maasadana intaas baan inooga soo qaadayaa waan inoo soo koobayaa horta laba eray waxaan u diraynaa meelaha waagi dhawood colaadu ka dhacday aynu leenahay intee baar cadawiile lagu gooyay bilaawe intee baari la toogtay bilic weyday ninkeedii baroortii shalay toole baasi weynu ogeyne inba ay kala yeedho waa beergooyiye ciine hadhaageena badbaadsoo hala baajiye dhiigga intaas baynu baaqaas nabadda oo maasadaan labada kelmadood inooga soo qaada baynu u diraynaa maasa la yidhaa tiiraanyo ayaan doonayaa barnaamijka inaan ku soo gabagabeeyo oo aan nuxurka doodeenna inoogu soo xidho iyadu waxay ahayd 2016 way dhaweyd barnaamijkan qabyaalada oo ilaa muddadaas soo taxanayd aan ku xiiqay ba maasadu waxay ku soo baxday aniga laftigayga baa la doonay qabyaalada la geliyo bahasha laftigeedii baa la yidhi dhulka iska dhig dabeetana ciddii arrintaa igula dooday baan la doodayaa maasaduna la hadlaysaa waxay tidhi tusmaysa anoo lahaa anoo tasadiid ahaa tasadiidku waa markaa tasada waa la yaqaanaba maya dadka badankiisu dadka qaarkii garan maayaane taso waa wixii waa waxaan markaa ka mid ahay waxaa meesha intaad ogoshahay macnaa waxaasi waa tasoobeen ama waa wax lumay xooluhu markay luqlumaan ay kala tasoobaan iyo wixii maqan iyo adoo ereygan taso erey si fiican runtii macnaha inay wax kala tasoobaan ay kala leexleedaan ay kala beedbeedaan ay iswaayaan macnaha tasadiid baan ahaa oo in la midaysnaadaan doonayay wey anoo tasadiid ahaa anoo tigtigaaya nacab anoo tabinaaya samo anoo taabaaya libin tabaale guddoonmiya halkaan u socdiya halka laygu wadaa isma laha soo maaha tabaale guddoonmiya warkiinu tabcaansanaa warkiinu tukaysanaa warkiinu tunmiiqanaa warkiinu tabcaansanaa warkiinu tikraaranaa warkiinu tunmiiqanaa warkiinu tukaysanaa baalka tukaha la yidhaahdo soomaalidu ma jecla had iyo jeer shibraha kale oo dhan waxba kama sheegaan laakiin markay tuka arkaan way necab yihiin macnaha ishaaro wanaagsan uma aha warkiinu tukaysanaa lubkaa toosisaan miyaa sharkaa tidicnaan miyaa waxaan tahniyeyn lahaa waxaan tiirtiirin lahaa waxaan sii tahbiibi lahaa tawfiiqdiyo wada jirkee wahay tani weydsanaa xaqiiqdu ma toogaba miyaan tafaraaruqaa miyaan tol u habar wacdaa waxaan tolla ay ahayn ma haba soo toyaninbaah kuwii isku tiirsan lahaa miyaan tisku kala xidhaa miyaan tog ku kala jaraa miyaan tubta waasaca ah tooriya ka dhigaa wadiig turxaama miyaan dhaqdaa tiiraaya miyaan fashaa miyaan tafantoof korshaa miyaan toltolaa nacayb miyaan tiriyaa xumaan miyaan naxli tuujiyaa miyaan toobaa dunuub miyaan tiftifaa dharkayn miyaan tafaqaa samaha tooray ka arooriyaa midkaan uga tudhi lahaa takooray miyaan idhaa kuwaan taakulin lahaa miyaan cidla kaga tagaa maanoo rabbi taabacaan muraad u tanaasulaa maanoo toosni heli karaan qallooc tab u raadsadaa maanoo qaran tahli karaan qabiila ku taam noqdaa maanoo tala sixi karaan tafaaful ku doorsada xanuun tarashow nadaa xisoo turqanow nadaa qodxaha tiinkow nadaa tusmada ma'arkow nadaa wadarta tirtirow nadaa
tukuba liitowna daa garaa tabanowna daa tognaan magayowna daa tiisaba dayacowna daa hunguri timanowna daa tusaale xunowna daa baasadu way dheer taayoo kolley dad badanna hadalka way iga dambeeyaa intaas baan kusoo gabagabeynayaa wuxuu baan odhan lahaa qabyaaladda si fudud baynu uga bixi karnaa bal hadda waxaad tijaabisaa qof walowba qofka ku neceb sida loo daaweeyaa waa inaad wanaajiso qofka ku neceb haddaad qof xumaan kaa tirsanaya ama aad isleedahay uu ku neceb yahay haddaad wanaajiso markuu ugu yar yahay xumaantiisu kaa daynaya qabiilkaagu neceb yahay qabiilkaasi inuu ku jeclaadaaday kugu xidhan tahay qabiilkiinay ku xidhan tahay qabiilka kale inuu idin jeclaadaana idinka idinku xidhan tahay marka waxa weeye dhinacba dhinaca kale hadduu wanaag tuso xumaanta meesha taalla halkaasay ku dhammaanaysaa qabyaaladuna waa hiil xaqdarra ah hiil xaqdarraana qof aan iska dayn karin ma lihin dhammaanteenna inaynu iska wada dayno ayaynu isfaraynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مهتسية هي قرأ محمد يوسف حاج عبدي أنا جاي مهد الشيخ هالكا وضفردنا خاص أنتي ومنسوين كتيرني ويرحم الله وحنلي ورملا هرجسة حكوبتنا مضلها بعض السوقان تلاقى قبته waxay ahayd maxamed inta mowduuciyo waxa lagala tagay in hal habeen la yiraahdo bal adiga iyo maansooyinkaaga iyo reerkiisa ay saragtaan arrinka ay igu taageersan Soomaa gobonimada sharaf maansooyinkii faraha badnaa uu tiriyay waynu uga mahad celinaynaa 19 92 93 inkastoo qoliyo waqtiga dhashay ay yar yihiin caawa marka laga tago saddexdiina halkan hore fadhiyay in halka fadhiyo mahad sheekh la yiraahdo inta kale waxaan malaynayaa way ka yar yihiin waxaan aan isleeyahay laakiin intani waa inta xiisaysa suugaanta waa bahdeedii waa in af Soomaaliga iyo qaab dhismeedkiisa iyo runtii jecel wasiirkuna waxaan filayaa wuxuu kamid ahaa bahda dhalinyarada ah ee runtii ragii muddada dheer ku soo dhex jiray ee buugaagtooda iyo akhriskoodaba dhalinyarada la socday waxaan markan doonayaa marka inaan si yaro degdeg ah saddex kelmadood oo mid walba 5 daqiiqo siiyo kadibna dhacdadii la yaabka lahayd ee taariikhdii caawa aynu fadhino waqtigeedii iyo 87-kii ku beegan 87-kii ku beegan ayaan rabaa iyadana inaan in yar aynu korneelka ka dhageysano ama gaashaan la sare kadibna wasiirka ay noo soo xidhi doona saddexda kelmadood waxaan ugu horeysiinayaa qoraa Xasan Cabdi Madar oo ereygiisa si kooban isagu inoo oran doona soo dhaw Xasan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halka ay joogaan odayaashii dhaqanka iyo qoraalka iyo maasayahanada ay joogaan hadal igaba banaana maxamed Kiise abwaanka waanu mahadnaqaynaa runtii mowduuc wanaagsan buu inagala hadlay oo aad u qiimo badan hore waxaan uga soo shaqeeyay markuu ku hawlanaa arrinta dadka dhimirka ka xanuunsanaya oo suugaan badan oo duuban iyo mid qoraalaba ku leeyahay mowduuc arrin aad u wanaagsan oo qiimo lahayd qoraaladiisu inta way ka badan yihiin buug weyn oo uu diyaariyay oo 200 maasada ay ku dhan yihiin ayaa isaguna inoo yaala arrinkan uu inagala hadlay waxa weeyaan arrin ay tahay sidiisa inaan u qaadano hadii jeer waxaanu eegnaa wax walba taariikhdeena dhaxal iyo waanu soo dhaxal iyo halkaas aanu ka eegnaa marka wax laga hadlayo dadka qaarna dhaxal bay u eegaan dadka qaarna amaah iyo deyn baa loo eegaa haddaad imika xoolo soo amaahato iyo haddaad xoolo dhaxasho ma si isku mid ah loo dhaqanta labada midkee baad xoogga saartay inaad ilaaliso waxa laga yaabaa imika haddaad dhul leedahay dhulka inaad tiraahdo awowgay baan ka dhaxlay aabahay baan ka dhaxlay waxa aad dhaxashay dunida kale dunida hagaagsan si ka duwan baa loo arkaa waxa la yiraahdaa dhulkan
waxaan ka amaahday ilmaha aan awowga hayay dhalan doona ka sii dhalan doona ka amaahday amaahda waad ilaalinaysaa waad ku simaysaa laakiin markaad tiraahdo awowgii baan ka dhaxlay awowgii ka horreeya ka dhaxlay waad waxa laga yaabaa inaad ka tagrifasho baabiiso marka inaynu ogaano nolosha inaynu qayb ku leenahay qaybta badanna jiilalka naga dambeeya dhalan doona leeyihiin oo aynu hantida u ilaalino dhaxalka u ilaalino wixii aynu helayna aynu sidaa u sii gudbino waxa kaloo halkan inoo jooga wasiirkii warfaafinta cabdiraxmaan oo runtii aan ahayn wasiir keliya ee ka ballaaran halgankiisa nolosha iyo dhaqanka iyo suugaanta aynu kaga bogan karno filayaa qoraaladiisa iyo bugaagtiisa gaashaanla sare axmed yuusuf oo isna taariikh badan inala wadaagi doono saan caawa filayo aad baynu ugu mahadnaqaynaa mahadnaqa ugu badanna waxaa laga dhalinyarta iyo faca halkaa fadhiya ee ay tahay aynu kasii amaahanay hantida ay lahaayeen iyo dhaxalkii hantida ay lahaayeen aynu kasii amaahanay ay tahay inaan u ilaalino wax kastoo ay tahayba aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad iyo aad ayuu mudan yahay qoraa xasan cabdi madar sida qiimaha leh amaahdii waqtiga laftigeeda isaguna uu inoogu ilaaliyey ayaynu uga mahad celinaynaa erey kale oo kooban baan isagana waxaan siin doonaa 5 daqiiqo waxaan isleeyahay uga yaray isagoo 4 ka dhig waayo markaan 4 uga dhigaa buu 5 ku joogsanaya waa macallin macallimiintana iyo hadalkana aad baa loogu kala baxaa waa macallin Sheekh Maxamuud Baaruud ayaan isagana erey kooban ila soo dhaweeya oo 4 daqiiqo 5 daqiiqo siinaya soo dhawo Maxamuud qoliyo badan weliba dhalinyartii ku moodaya laakiin جزاك الله خير حمد سوما سيئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هو قامنا على وحنا طبعا عن فلين هالقيسان واد ما سنتي دمانتين با قولها يعيد السوق على سنتي يو أبو الندى أنا قوالله يقدر حليا وأبو أنك يقدر حليا مضل أنا كود أغني 2014 أنا قول بالإنجليز كتشوفنا أيانو حفلتنا عنو كلاس خوني مركا xafladaasi oo runtii anigu abwaan ma ahayn laakiin dana yar baan ahaayo dhimashada aad aan u xiiseynayn marka waxaan arkay dadka iyo dhimashada aad u xiiseynaya oo waxa la ii sheegay laf yar oo ka dhashay odagii anaga na dhalay ayaa waxa la igu yiri 10 wiil buu dhalayo deedna habeen baa qolo kale ku soo gudayo 9 bay dileen marka midkii yaraa soo haray baan nagu noolahay marka waxa aqligiisii waan warniyo waxaan meel wadaynaa hadii anaga wax bad naga soo hadho inta ka jirnay manka in wixii marka la sii wado oo ay socotaa dawal nooc waalida kamid ah marka qabyaalada iyo qabiilku mustaqbalku sheegay waa laba shay oo inta badan la isku khaldo dadka bahda qoraalka ama aqoonta barta ayaa waxay moodaan inay tahay qabiilku waxa cudurka ah deena waxaan qabiilka la dagaalamo marka qabiilkeena la dagaalamana maaha ee waa in qabyaalada la dagaalamo sababtu waxa ay sheegay waxa weeye de qabiilku waa adiga laakiin qabyaalada aniga ma anu qabiil baan ka dhashay laakiin qabyaalad ma aaminsani marka shayna waa wax la kasbado oo qofku dhaqan ka dhigto waxna waa waxaan waxba ka qaban karin shariicahaana waa go'aantiina ilaahay inama faro waxyaabaha in waxba ka qaban karin wax ka bedelo salaamidabkaaga oo kale iyo reerka aad ka dhalatay isirkaaga kuma kal ilaahay kuma kalifin wax ka bedasho ama ka qofta laakiin qabyaaladu waa wax aad u xun oo qofku wax ka qaban karo marka waxaan ku soo ururin lahaa oo kaliya qabiilku ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa ka sheegay jacalnaakum shu'uban wa qabaa'ila litacaarafu billahi tabaaraka wa ta'ala inaan isku barano oo guurkeeni iyo dhaxalkeeni iyo abtirsigeeni ku hagaaga weeye laakiin qabyaaladu waxay koobsataa waa diin la'aan maangaabnimo damiir xumo iyo caqli la'aan meel isku wada geeyay qabyaaladu waa waxa kaliya ay ka suurowdo inaad abtigaa soo disho misana aad isku aragto nin guuleystay inaad tahay inaad walaasha hangaf saarto oo ninkeedii reer kale soo disho dabadna isku aragto inaad guuleysato sheekayso laba cisho ka bacdina agoontii uu ninkii aad dishay lagu keeno laabtibaad u tahay oo lagu yiraahdo walaasha inta ku timaado hangaf xidhani aan midho lagu yiraahdo waatan caloosha abtiga waxa wax ka qabo وانا runtii dhacdaayo waxaan igu dhacday maalin baa inta qolay timigu tiri qoliyaheen iyo qolo kale isdilayeen waxaan doonaa lacag baan ka doonaynaa
markaasaa waxaan ku uri niyo wallaahi anigu walaasheen hangafa xidho diyaarumeeye ma ka daysaan muddo yar ka bacdi baa inaan hablaagnahay baa ii timi waxay ii sheegtay inay dhinteen hooyadeedna hangafa xidhta aabaheed baa la dilay oo dhinacana walaasheedna asayba iyaduna xidhataa ma hangafo dhinaca kale kasoo dagaalamayeen iyaguna deedna hal guri ayaa waxaa isku yimid laba qof oo labaduba ay xidhan yihiin hangaf ama asayda wax loo yaqaano dumar ah oo dadka isdilayaana waayo oo dadka wada yaala marka runtii qabyaaladu waa diin la'aan waa damiir xumo waana maangaabnimo meelna ma wada galaan qofku yidhaahdo rational baan ufkaa qof caqli la baan ahay isla markaana qabyaaladaystaan ahay sababtoo ah qabyaaladu waxay ka turjumaysaa nacayb aan ku dhisnayn wax principle ah yacni qofka waxa lagu naca waxa uu doorto tusaale idiin sheegayaa nin baa maalin wuxuu igu intaan wada hadalnay reer maanta markaasa waxaan ku uro niyow miyaan sida adii qiimeyn karaa adoon reerkayga weydiin ma horta isu kala sheeg buu sababtu idinaya halkan maskaxdiisa wax folders baa ku jira halkan reer hebel baa ku jira waa ku daafad halkaa reer kale ku jira waa reer asala halkaa waa iska caadi marka wuxuu rabaa meeshuu dhiga lahaa inuu helo hadda la soco meeshuu dhiga lahaa ayuu doonaya inuu helo marka macnaha runtii qof caqli lihi ma geeyo qabyaaladda qof diin lihina qabyaaladda ma geeyo iska daa qof ku soo jabay sideenna oo kale oo intaas oo kun oo jeer baynu ku dhimanay qabyaaladda marka qabiilka okay waana codaynayaa qabyaaladana waan ka codaynaya jazaakum allahu khayr amaasantiin shan daqiiqo kelmaddii saddexaad aynu ugu talagalnay way noo baaqatay sidaa awgeed muddo 10 daqiiqa waxaan rabaa inaan u qaybiyo gaashaanla sare iyo wasiirka oo inoo xidhi doona 22 bishii 1987 habeen caawo kala ah madashan in badan ka weyn oo ahayd magaalada muqdisho ama xamar oo ay fadhiyeen dhowr golihii sare golihii dhexe golihii kacaanka golayaal kala duwan wasiiro gaashaanlayaal ciidamo kala duwan ayaa waxa loo soo qaban qaabiyay in lagu xuso xafladii ama xuskii ciidanka kulankaas waxa fadhiyay madaxweynihii waqtigaas ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre xafladda markaa waxa loogu talagalay in xoogaa suugaana laga yar horreysiiyo intaan madashu bilaabmin dadkii madasha suugaanta ka tiriyay waxa ka mid ahaa qoraaga aynu caawa halkan u fadhino gabaygii uu tiriyeyna wuxuu noqday gabay markii la marinayay faafreebka la iskama gabi jirin marka hore niman baa lagu soo marinay wax lagu leeyahay bal gabaygaaga horta si akhri intaan madaxweynaha qaranka ka hor akhriyin markuu akhriyay intii yarada fiicneed oo quru u akhriyay qoladii faafreebka intii isagu laakiin uu socday uu ka tagay markiise mikrofoonkii isaga loo kala baxay ayaa wax allaale iyo wixii ku jiray uu banaanka soo dhigay markii uu stage ka soo degay dhacdooyin la yaab loo isxiga ku dhacay gaashaanlayaal iyo ciidamada u soo kacay mid ka mid ah gaashaanlayaashii habeenkaas u soo kacay waxa ka mid ahaa oo waqtiga kabtan ahaa Axmed Yuusuf oo loo yaqaano timajile bal dhacdadaasi siday u dhacday waagaas iyo xaaladdu siday ahayd markii uu wiilka dhalinyarada isaga waqtiga Maxamed oo aad u dhalinyaro ahaa malaha sawirka xagga sare ka muuqda buu waliba aad uga sii yaraa bal Maxamed iyo isaga wixii dhex maray iyo isaga laftigiisa siday u saameysay dhacdadaasi ayaan doonayay inaan siiyo waxaan ka cudur daaranayaa inaan halkan soo istaagaynin maadaama oo aan gurigiisa ka soo kaxaynay isagoo indhaha ka cabanaya oo runtii culayskaas halkiisa isagoo fadhiya inuu sheekada ka dhageysan doonaa kadibna maatikayga halkan u sababaha beri waxaan u malaynayaa inay ahayd 87 ayay ahayd sanad guuradii ciidanka asluubta oo ay markaa cid waliba joogto ayaa golayaashii
dhexe madaxweynihii saraakiishii wasiiradii cid walba way joogta ayaa intii aan xafladda la furin waxaa nimankii abwaanada ahaa ayaa waxoogaa madadaalaha ka sii horreysiiyey kayse anigu markaa kayse ma aqaano laakiin kaysoo aada u yar aniga laftayga waa yaraay kayse abwaan kayse wallaahi aada u yaraa ayaa halkii wuxuu ka tiriyey maanso qabyaaladda ka hadlaysa maansadii markuu tiriyey ayaa waxaa qabyaaladii ka hadlaysaayoo baasha waa tii la aasee goormaa la soo faqay buu leeyahay ay ilka yeelatay balaayada noqotay ayuu leeyahay markaasaa waxaa ku soo kacay madaxweynena uu fadhiyaaye maxamed siyaad barre waxaa soo kacay saraakiil badan oo markaa danayn waa la deldelide waa la deldelaya abwaanka rag badan oo isle ayaa ku soo saro kacay maxay waxaana tirinaysa qaar way canaananayaan qaar way naxsiyiin qaarba waasi anigu dadkan ba arki maaye inankan yaree dhallinyarada ahi maansadan kii da'da weyn ee uu tirinayo ayaa aniga unbay gashay wax ma weli loobi waa nimankii baan la diroon waa maxaa ku hadlaysaa run buu sheegayaa inanku wallaahi halkaas aliga sawdeeyo baa 2 way fadhiyaanoo way waa deldelayeen xilligaa kaysaan markaa labada dhaban ka dhunkaday waa kor u qaaday oo gabigiisiiba kolba meel u loortay ismaba oginaan markaa waa la sii naxay oo ay maanta u daran tahay kanna waa kan raacay kiyana kanna waa kan raacay dabeed xogaa yar markaan joogno ayaa meesha huur bay noqotay oo arsiri dibadda kuii soo yar leydhso soo noqodkaan soo noqonaya baa lai diiday albaabkiidan ka soo galo waa lay joojiyey kii maaya xerada laftigeeda markaa mas-uul anigaa ka ahaayo taliyaha ururka taliskaan haystaa dabeedna salaanta laftigeeda madaxweynaha la siinayay markaa anigaaba bixiyey anta ninkaygii balaayada iska dhigayay baa albaab walba layga hor joogsaday albaab walba waa layga hor joogsaday markaasaa tareenkii igu soo noqday waa waxaad samaysay waa maxay markii hore wallaahi wax walba waa ilowsanaa ninkaa yar iyo unbaa ii muuqdiyo suugaanta ereyada uu tirinayo gabigiisaasi uu ku xusaayo say miisaanka u leeyihiin ayuunbaa aniga ii muuqday dadkan biyo abwey wixii o dhan waan iloobayba waan iloobay markii albaab walba layga joogsay laii diiday inaan soo galo ayaa dareen baa igu dhacay oo markaasaan dib u xisaabtamay wadha waayo maxaad samaysay maxaa dhacay bal hadda kan kale kii kale ka gal waa layga hor joogsaday waba laygu soo ururaaba waa layga celiyey dabeedna gaadhigaygii baan kaxaystay oo ay dawladdu lahayd oo gurigaygii baan qabtay fikir badan baa igu dhacay inaan muxuu ahaa baaba badan meelo badan jiiday baan isu arkay oo markaa baahideeda halkan looga baahnayn arrimahan halkan looga baahnayn inaan anigu dabaashay baan markaa isu arkay dabeedna kolba waan toosaa kolba waan sara kacaa kolba sibaan yeela adigu waxay noqotay inaan maalin labaadii ayaan ba kabaha soo qaatay ka soo laabtay oo aan ani intaan sunnayaasha adigu intaan isku diyaargarayay inaan dee iskaga baxsado meesha ayaan baskii beledweyne soo raacayo sidii baan dabeedna qoladii ururkii dhaqdhaqaaqa SNM ugu yimi sababtaasaan yaa muxuu ahaa markaa waxaan weli ilaa iminkaan isweydiiyaa ninkan yaraantiisii runtii iyo ereyadu isticmaalayay ee afkiisa ka soo burqanayay maskaxdiisa ka soo baxaysay ilaa iminkaan isweydiiyaa wallaahi markaan ka war isweydiiyaa ilaa qof baan ahay inanku aad buu yaraa
ilaa xad buu yaraa waxaa kala miisaan weynaa markaa suugaanta isaga ka soo baxaysay iyo oo madaxweynihii maxamed siyaad barro halkaa taagan soo fadhiya uu kala gaba waayey uu isagoo dhigta marta dhigta u saaray ummadii markaa meesha qaar way farxaan oo hoos bay u qoslaan qaar way naxaan qaarba sibay yeelaan marka wax badan baa ka dambeeyey dhowr iyo 30 sannadood wax badan oo ilowsanay am sorry ismaan lahayn taasaa wax laga weydiin doonaa arrintaa ayaa wax laga weydiin doonaa xilligaa ka duwan kumaan xisaabtamin marka wax badan oo ilowsanay oo ka cudur daaranaya wax badan oo ilowsanay kayse marka sidii aniga gorol baan xasuusan jiray ayaa markii 19 dalka la soo galay ayaa maanaanigo meel iska marayo maan arkay ninkanoo baan kulannay dibadna madbacad buu lahaa meel yaroo madbacad yaroo teebka lagu garaaco dibadna sansal lagu wareejiyo ayuu lahaa marka muddo sanadii shaqaynaysay madbacadiisii sanadka maalin walba waan tegi jiray meeshiisoo gel horii gel daba waan fadhiisan jiray anigoo weli niyadda aad ugu haya ma garanaysaa marka waxa weeyaan waa deeqaa ilaahay bay ka mid tahay alxamdulilah rabbil caalamiin waa deeqda ilaahay bay ka mid tahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu naadiga akhriska ee Tima Cadde ayaa gaashaanla sare waxay u soo diyaariyeen hadiyad gaar ah oo 31 sannadood kadib ay ugu talagaleen in ay ku yiraahdaan waad ku mahadsan tahay geesinimadii iyo dhiiranaantii maalinta aad qaadatay waxaana guddoonsiin doonaa wasiirka warfaafinta kadibna si toos ah waxa barnaamijka inoogu soo xiri doonaa wasiirka may halka iska istaaga maxamed fina caaqab Soomaaliya labada gacmood aad baa mahadsantihiin marka waxaad moodaa inuu habeenada kale inooga cudur ina ragaadiyey oo ilaa hadda horena aynu isu soo eednay ama aynu soo eednay maantana ina haya ayaynu caawa malaa dawadiisii halkan laga hadlay waxaa runtii aad u mahadsan dhalinyaradii soo qabanqaabisay shirkan arrintaa lagaga hadlayay waxaa kaloo mahadsan abwaan maxamed kayse oo isaguna arrintaa iyada ah ka hadlay waan ka xumahay waan ka yar maqnaayn arrin yaroo igu yar waxaan u yahay baxbaxayay gaashaanla sare Tima Jilic inaan dhegaysto waan jeclaa laakiin waxaan filayaa inay arrin aad u fiicneed ahayd runtii siduu baruhu sheegay ereyga qabiil iyo qabyaalad aad baa la isugu murgiyaa sidaa uu sheegay ee ilaahayna inoo sheegay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafu in la isku garto la isku ayuu ilaahay inoo keenay laakiin ma odhan litaqaatalu inay isku dishaan ta cudurka ahina waa taas wey markaa runtii hadda waa ogtihiin waxaa ka taagan bariga dowladdu waa awooddoodu waxay suugaysay nabadayn waxaanu diyaar u nahay wacyigelinta inaanu qaybteeda ka qaadano haddaan wasaaradda faafinta nahay iyo wacyigelinta idinku haddaa maanta tihiin dhallinyaradii facan soo koraya ee qarnigii 21 joogta waxaa loo baahan yahay inaad ka kortaan oo ka weynaataan oo qaadataan mahadhada laga sheekaynayo waxa la isku dilay inan caayay baa la isku dilay hal oo nin dhegad yar ku dhuftay baa la isku dilay oo 100 qof lagu dilay ceel laga wada cabbi lahaa oo ku filan labada dhinacba ayaa la isku dilay ma cabbisid iyo annaga cabbayna bal yani intay leegtay bal walaalkaa u darto wadaantood biyo siisa maxay ku yeelaysaa ay kaa jaraysaa inaad intaas oo qof aad ku dhaka jarto sidaasi daraaddeed waxaa inoo ballana haddaba haddii akhriska iyo qoraalka tihiin inaad arrintaa ka dagaalantaan inaad arrintaa isgaadhsiisaan
waa waxa dib inoo dhiga waxa kale waa lagu tartami karaa tartan waxa kale ha lagu tartamo ku colaadi hebel wuu iga sarreeyay oo ku dadaal inaad gaadho laakiin ha ku dilin ma koobiya tan ha ku dilin laakiin tartan oo gaad hebel baa PhD qaatay anna PhD baan dhaafay haddii tirtaba dhaafay hal PhD buu qaatay 5 PhD baan qaadanaya waa tartan marka ma dilin laakiin waad ka raysay waa tartantay guul baad gaadhay laakiin hebel muxuu ii dhaafay ama muxuu hash halkan uga waraabiyo waan gowracaya wax maskax wax lagu hadla ma marka runtii waxa inaga dawladda ka go'an in dalkan nabadgelyadii lagu soo celiyo waxa ka go'an in kala dambeynta ay soo noqoto waxa ka go'an inaynu dawlad noqono oo aynu ka gudubno reernimada tii ilaahay inoo abuuray ma laga tegayo reer hebel waa tahay sida uu macallinku sheegay waxa weeye adigu ma dooran laakiin waxa weeyaan ilaahay baa ku dooray lagaalamana tashan marka dalnaysa adiga laakiin waxaad mas'uul ka tahay inaad ilaaliso walaalkaaga kale waxaad mas'uul ka tahay inaad ilaaliso walaasha waxaad mas'uul ka tahay in aad aanad ku xadgudbin walaalka iyo walaasha iyo ehelka iyo deriska iyo intaba diintii waa la iloobay diinteenu ma ogola inaad intaas samayso runtii waxa loo baahan yahay in caqliga laga shaqaysiiyo waa sida uu macallinku sheegay waa lagu guurayaa ama sida uu sheegay abwaanku wasiirkeennii baa lagu leeyahay kursigeennii weli ma isweydiisan kursiga ninkan uu sheegayo cidda lale tuuga maalinta la qabto ee waxaday marka hore waxba kaamansan kuma aqoon maalinta waxadeen la qabto ayuu wuxuu ku leeyahay kursigeennii baa la dhacaya ma isweydiisan kursigeennii goormaanu kula yeelanay ma ku aragnay ma noo timi waa maya war kursigan idinku ma lihidina ninkan isagu ma meesha tegey dee tuug hadduu shaqo tago lasoo qabtana dee idinka shaqadiina maaha reer hebel waxba may xadin reer hebel dembi male waxba ma lihi laakiin waxban isagaa dembiila war ha u doodina nin dembiilaha ha u doodina haddaan shaqo lay diro shaqadeydii ka soo bixi waayo de reerkaygu kamay soo bixi waayo anuma ka soo bixi waayo reerkaygana laba sin anaa laysiiyey de haddii lay tuuro maxaa kursigiinii ka dhigay oo arkii hawshiisa ka soo bixi waayo waa la tuuran dhacasa bal garaadkeena aan korino inankaanu 5 sano 6 sano isku kala iska hayn 30 sano kadib baan ogaaday ciduu yahay oonan aqoon oo saaxiibuna aqoon isku kalaas baan sheegay isku kalaas intaas ay ugu dhintaan aniga laakiin aduu soo sheegay macallinkeeda in qolama tahay isu ka sheeg waxaan isaga ka sheegay ninka Soomaaliyeed baan isu ka sheegay macallin baan qoraabana waxaad ka rabtaa maya ee waa iska oo in haye kulli tani kala tegmaysa adoofis malacag ku siinay aad siinaysaa xoolaad siinaysaa miyaan ku bariyay maxaad ka rabtaa reerkayga ilaahay ka baq haddaad tiraad halkaan is soo taago wariyuha sabir reer sugu reer baniga ilaahay ka baq ilaahay ka baq وإلهي كبر قف شيخ هو إن رانو هدان كنا إلهي كبر شيخ هذا ما ديني محاني هيري بالكده يستيدي هير كاسين مرنا وبهاش هذا ملحم بين الله مرسا شغله هدا دوني شو سحن هكود دوني أقوم كدون أرتش صغرو أقوم تاسانا قانا وحين مرنا هير نكي PhD استعمل ماستر شستي la yidhaha dhulka xaad inay yaroo waxba garanaynin oo iskuul ka soo bixin oo waxba garanna intuu wasiir ama cid reerta la qabto la leeyahay asima guud baa laga dhigay iyo maxay baa laga dhigay dee halka hadday mariso baabaa baynu nahay marka runtii waxaan rabnaa inaan ka gudubno way soo dhaaftay xilligii muxuu ahaa xalka waxaan rabnaa inaan u gudubno u tallaabsanno xilligii maxayga
xulka aqoon iyo karti waa in wax lagu doono markii caalanka la qaatay lixdankii wasaaradda waxbarashada ee Hargeysa hadda u fiirso heerkaynu maraynay waxa madaxa ka ahaa xasan meegaag samatar uu nool yahay ku xogeenkiisu wuxuu ahaa cumar meegaag samatar oo walaalkiya wasaaradda boosta waxa haystay ismaaciil meegaag samatar qof keli oran jiray maxaa nimankan walaalaha meesha loo dhigay ma jirin aqoon baa lagu yiri hadoo fiirso idaacadda waxa joogay Yuusuf meegaag samatar يعني قوس دورية طبعا الله أنت بعدين بعد بعد بعدين تيجي ورجع وياخذ مدين هير أنا قاعد ميتشري عيد هل كتير هل يسوي ولا هن حافظة هل كان الجود جامع يصير نقدر ميتشري أقوم بكتة جينا قاعد لما قبل ورواين هل كانوا كني بجارنا أو طبعا ولا علي أي وسارة كوضع الشقين كرانو أقوم كويما جنون خير كويما خير كان لا يسود ترين اللي خير هي بالهل جاب كويما ترين هل الجوج أقون الله يعلم كرتي الله يعلم هاتو كرتي ما دول السوريو هل الداي كان له أردي اللي هي أنا كيجي بقى ماشى الله جسار نين المجا عبود وده جاب كوري أنا كيجي بقى ماشى الله جسار ورينا كيني ما ولا الكلام ما أنا كبراني ولا الكلام أنا أنا كيجي إن كان سكوب هيك أنا كيجي وما يعني ولا الكي هدان وحب الجرانين على طول هذا الكلام كله هذا عن كجدود وأن أرنتني إسكدين إمك ها وودا حين إنسان لكن إمك بركة من هالك كدر الروح هل كين يوم بينو كبلا وتا إنه هل كان لتشوفون أو إنه كقدر بينهم ورنيك أقون سكر راعة أو واحد أو إذا تعيشين سكر راعة وإسكول كودة ترستين سكر راعة وعيارة ولا عيارتان سكر راعة يعني أنت أسباب ولا على كل نقطة كرتان لكن هي الباين هذا ركي هي البحافظة يضع وحن لا هاي وحن قارني أما إنه تشوفنا اللي يجي لي يقول بلها مركيو شمبر الله نحرست أحمد هنا محمد كود وكود هيس تري تي حيبة اللي تبغى ولي أور كدوضة هي وهي هذه حدنك برجع صولة لها أن هيكسن رجع دي حجاري اسمه الهين لبعض يكون بايد هل كي برجع كجودتين دلوا وصلنا قنيا هذا الكون الكبير والسلام عليكم ورحمة الله هذه أدوم هسيه وزيرك يدمان بعد كسوق يبقى شيء مرتدى إنه